Asalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada filim xiiso badan. Filimkeena maanta wuxuu ka hadlayaa koox askar socdaal ah. Waxayna ku raad joogaan askar horey u luntan Artemis iyo kooxdeeda oo safarkoodii sii wata. Waxay la kulmi doonaan wax lama filaan ah. Kadib safar dheer oo waqti badan socday, waxay arkayaan raad gaari ah. Laakiin raadkaas ma lahan raadraac horey u socda ama gadaal. Waxay isweydiinayaan gaari aan horey ama gadaal midna u soconin sida uu meesha ku istaagsanaa. Kabtan Artemis iyo kooxdeeda oo weli la yaaban waxa dhacaya, waxay arkayaan duufaan xoog leh oo dhankooda u soo socota. Waxayna go'aansadeen inay si degdeg ah uga laabtaan. Duufaanta oo wadata dabaylo iyo ciid badan, si degdeg ah ayayna dhankooda ugu soo socotaa. Laakiin waxay dhexda ka galayaan duufaanta. Gudaheedana waxaa ku jiro hilaacyo waaweyn sida roobka oo kale ah. Ugu dambeyntiina waxay ku tuuraysaa god, waana halka ay kaga gudbayaan dunyada kale. Artemis iyo tiimkeeda markay indhaha soo kala qaadaan, waxay la yaabi doonaan meesha ay joogaan. Iyagoo la yaaban goobta ay joogaan, Kabtan Artemis waxay la soo bixaysaa maap ama qariirad, laakiin waxba kama arkayso. Kadib niyad-jab weyn, Artemis kooxdeeda waxay u sheegtay inay iska sii socdaan, laakiin waxay arkayaan gaari burbursan. Markanna waxay ogaadeen in ciidanka horey u lumsanaa iyagana lagu soo tuuray goobtan sidooda oo kale. Inta ay socdaalka ku jiraan, Kabtan Artemis waxay dusha sare ka garaacaysaa gaariga, waxayna u qaadaysaa hees madadaala ah. Tiimka oo dhanna si wada jir ah ay heesta u qaadi doonaan, waxayna u arkaan is-ilowsiin jahwareerka ay ku jiraan. Laakiin markay inta soo gaareen, waxaa dusha sare kala socda ugaarsade. Waxay arkayaan wax sida lafaha bahal weyn u eg, lafihiisana dhulka ay ku jiraan. Iyagoo wiil la yaaban bahalka iyo weyninkiisa, waxaa falaar digniina u soo diraya ugaarsadaha. Wuxuuna ku dhufanayaa mid ka mid ah lafaha, laakiin rasaas ayay ku furi doonaan oo waxay moodeen in uu weerar ku soo qaaday. Artemis waxay ku qaylinaysaa joojiye rasaasta, waxayna u sheegaysaa inay tahay digniin ayna ahayn dagaal. Laakiin markan waxaa dhulka hoostiisa ku soo socda bahal aad u weyn, weerarna ku ah iyo ka xaggooda. Waxayna isku dayayaan inay ka baxsadaan, laakiin wuu ka daba imaadaa wuuna kala fardhinaya. Markan wuxuu isagoo dhan ka soo bixi doonaa dhulka, iyagoo la yaaban nuuca bahalka uu yahay iyo awooddiisa. Waxay ku furayaan rasaas, laakiin rasaas waxba kama tarto. Wuxuuna ka fardhinayaa gaariga. Nasiib wanaag waxaa falaar ku soo tuuraya ugaarsadaha. Artemis iyo kooxdeeda waxay helayaan jaanis ay ku galaan jamalka hoostiisa. Taasina waxay ka dhigaysaa inay ka badbaadaan bahalka weerarkiisa, maadaama uuna geli karin duleelka yar. Wuuna ka laabanayaa goobta, wuxuuna dib ugu laabanayaa ciidda hoosteeda. Markanna saacadda waxay gaaraysaa habeen. Artemis iyo tiimkeeda oo weli ku jira jamalka hoostiisa, waxay u sheegaysaa in qof kasta uu naftiisa badbaadiyo ay tahay waajib saaran. Waxayna u tilmaamaysaa in wadajirka uu yahay shayga lagu guulaysan karo. Laakiin Artemis waxaa la boodi doona quraanjo weyn, waxayna gelinaysaa miciyaheeda, laakiin waxaa ka badbaadin doona mid ka mid ah askarteeda. Artemis oo la soxsan sunta quraanjada, waxaa weerar ku soo qaadaya quraanjo fara badan, laakiin bahalada way sii badanayaan. Artemisna weli way suuxsan tahay. Mid ka mid ah askarta oo la tacaalaya Artemis wuu macsalaameynaya isagoo ka xun maadaama ayna soo kicin, laakiin nasiib wanaag bahalada way dulmarayaan Artemis sababtoo ah bahalada ma cunaan waxaan nuuxsanaynin ama naf ku jirin. Laakiin askarta kale mid ayaa loola boodaya. Intaas kadib Artemis waxay ka soo kacaysaa suuxdinta, laakiin cidna ma joogto meesha. Markuu waaga baryana Artemis waxay ka soo baxaysaa godka, laakiin askarteedii way dhammaadeen. Artemis oo kali noqotay waxay koraysaa buur aad u dheer, laakiin markan dhulka ay ku soo tuuraysaa dhagax yar. Isla markiina bahalka wuxuu ka soo baxayaa ciidda hoosteeda. Waxayna ogaanaysaa in bahalku uu weli joogo goobta. Markanna Artemis way haraadsan tahay, waxayna raadinaysaa biyo ay cabto. Artemis oo weli daydayaysa biyo, waxay u soo ordaysaa waal ay mooddo inay biyo ku jiraan, laakiin waxba kama helayso. Inta ay biyaha raadinayso Artemis, waxaa weerar gaadma ah ku qaadaya ugaarsadaha. Iyadana waxay ku qasban tahay inay isdifaacdo, wayna la dagaalaysaa oo way iska celinaysaa, laakiin dagaalka ma sii soconayo. Kadib dagaal dheer, Artemis iyo ugaarsadaha way heshiinayaan. Markay heshiiyaanna waxay siinaysaa shukulaato ama chocolate. Isagana wuu ka helayaa oo way la macaanaanaysaa, wuxuuna ka dalbanayaa inay siiso shukulaato badan. Waxayna u sheegaysaa in ay shukulaato tahay. Isagana wuxuu siinayaa biyo. Artemisna way ka qaadanaysaa maadaama ay haraadsanay. Inkastoo Artemis iyo ugaarsaduhu ayna isku luqad ahayn, laakiin waxay isku fahmi doonaan si dabiici ah. Wuxuu u sheegayaa in bahalka magaciisu uu yahay Diablos. Iyadana waxay u tilmaamaysaa in gaariga hoostiisa uu yahay hubkii lagu dili lahaa bahalka. Isagana ma yaqaan hubka iyo waxay sheegaysaa Artemis, laakiin isaga wuxuu u tilmaamayaa in bahalka sida ugu fudud loo dili karo ay tahay in madaxa laga toogo. Maalinta xigtana Artemis iyo saaxiibkeeda cusub waxay isku diyaarinayaan inay la dagaalaan bahalka. Ugaarsaduhu wuxuu Artemis siinayaa qalab dagaal oo dhammaystiran, sidoo kalena wuu tababarayaa ilaa Artemis ay noqoto mid u diyaarsan dagaal. Markanna Artemis iyo saaxiibkeeda waxay diyaar u yihiin inay wajahaan khatarta bahalka. Markanna waxay diyaareen fuusto ay ciid ka buuxiyeen si ay ugu soo tuuraan ciidda ama saxaraha. Waxayna rabaan inta bahalka uu ku mashquulsan yahay fuustada, ayakana ay ka faa'iidaystaan. Diablos oo ah bahalka magaciisa, sida caadada ahayd wuxuu ka soo baxaya fuustada. Ayakana waxay rabaan inay ugu faa'iidaystaan daqiiqadahaas yar.
bahalkan wuxuu la boodayaa fuustada isla markiiba. Artemis iyo saaxiibkeedna waxay rabaan inay gaaraan gaariga hubka ku dhex jiro. Bahalkana si degdeg ah ayuu ugu soo daba cararaya. Artemis iyo saaxiibkeed oo orodkoodii sii wata, waxaa si lama filaan ah ugu dhici doonta sunta uu watay. Wuxuuna u laabanayaa inuu soo qaato suntiisa, laakiin bahalka ayaa ku imaanaya. markana ugaarsadaa wuxuu halis ugu jiraa inuu cuno bahalka. laakiin ugaarsadaa wuxuu isticmaalayaa falaartiisa oo sumaysan, maadaama uu ku wanaagsan yahay shiishka. waxayna ugu dhacaysaa isha. bahalkan wuxuu dareemayaa xanuun badan uuna sii xanaaqaya. Artemisna dhankeeda waxay xabado ka soo gamaysaa gaariga hoostiisa, inkastoo bahalka ayna xabadaha waxba ka taraynin, laakiin isha waxba si fiican uguma arko. Artemisna waxay soo qaadanaysaa RPG. bahalkana markan si degdeg ah ayuu dhankeeda ugu soo socdaa, laakiin waxay ku guuleysanaysaa inay ku dhufato bahalka. markana bahalka jug culus ayaa gaartay, laakiin intaas kaliya kuma eka. inkastoo Artemis ay mooday inay ka guuleysatay markaan, laakiin wuxuu si lama filaan ugu soo qaadayaa weerar kale. waxayna ka galaysaa gaariga hoostiisa, madaxuuna ku qaadayaa gaariga. dhanka kalena ugarsadaha oo dagaalka qaybka waxay si lama filaan u arkaysaa isagoo taagan dusha sare ee bahalka, wuxuuna seeftiisa ka gelinayaa madaxa qaybtiisa jilcan. ugarsadaha wuu suuxayaa maadaama ay jug gaartay. markanna waa Artemis markeeda, waxayna ku khasban tahay inay dhammaystirto mishinka, iyadoo rabtana inay gaarto dusha sare ee bahalka. waxayna isticmaalaysaa qalab gacanteeda ku xiran, waana xarig ay ku boodayso. Artemisna waxay ku guuleysanaysaa inay gaarto seefta, waxayna seefta gudaha usii gelinaysaa madaxiisa, laakiin bahalka wuu dhaqdhaqaaqayaa maadaama uu xanuun dareemayo. Artemisna way is adkeynaysaa, waxayna rabtaa inay gudaha usii geliso seefta. ugu dambeyntiina waxay si dhammaystiran u gelinaysaa seefta. markana bahalka waa dhammaadka noloshiisa. Artemisna way ku guuleystay inay nafta dhaafiso bahalkii weynaa. markay soo baxdana waxay arkaysaa saaxiibkeeda ugaarsadaha oo weli suuxsan, laakiin Artemis kama tegi karta saaxiibkeeda. subaxdii markii la gaarana ugaarsadaa wuxuu kasoo toosayaa suuxdinta, laakiin markan wuxuu la yaabayaa meesha uu joogo iyo siday wax u dhacayaan. inkastoo Artemis ayna fahamsiin karin, laakiin adiga waa fahmaysaa ay subscribe tahay iloobi. intaas kadibna way kasoo dhaqaaqayaan goobta, waxayna weli raadinayaan siday u bixi lahaayeen duunyadan qariban. kadib safar dheer oo gaajo iyo saxaro ah, ugu dambeyntiina waxay gaareen dhul ka duwan sidii hore. hortoodana waxaa fidsan doog cagaaran iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ku hareeraysan ubaxyo iyo geedo qurux badan. ugaarsadana wuxuu Artemis u tilmaamayaa bahalo waaweyn oo si degan u cabaaya biyaha, laakiin wuxuu fahansiinayaa inay kaliya cunaan cawska. ayadana way fahmaysaa. intaas kadibna waxay u sheegaysaa inay haraadsan tahay ayna rabto inay biyaha cabto, wuxuuna u sheegayaa inay cabi karto. kadib daal iyo gaajo waxay duwanayaan hilib ay soo ugaarteen, waana daqiiqad yar oo nabadeed ka hor inta aysan wajihin halis kale. inkastoo ilaa hadda aysan wax fikrada ka haysanin meesha ay joogaan, balse waxay ku qasban yihiin inay u noolaadaan si dabiici ah. kadibna siina gaaban, saacaddu waxay gaaraysaa habeen. waxay arkayaan bahalo caraysan oo si xuliya u socda, waxay arkaanna korma, waana bahalo ka duwan kuwii hore, tiradoodana ay badan tahay. laakiin isla markiiba waxaa kor ka soo degaya nin aad u weyn, wuxuuna wataa seef holcaysa. markuu dhulka ku dhuftana wuu hulcayaa dhulka. bahaladana waa inay ka leexdaan holaca, dabcan wuu yaqaanay sida la iskaga difaaco. Artemisna way u mahadcelinaysaa, isaga waa madaxweynaha dunida ay joogaan, wuxuuna u soo kaxaynayaa goobta uu degan yahay. markay tagaanna waxay arkayaan waxyaab leh, noole bisad u eg, sidoo kalena dabeecadda bini'aadamka leh, sida midkan oo kale. markanna waxaa Artemis loo wadaa meesha loogu gudbo duunyada kale. madaxweynaha wuxuu u sheegayaa in halkan ay tahay meesha kaliya loogu gudbo duunyada kale, isagana uu yahay midka ka taliya goobta. laakiin ayada waxay ka baqaysaa hilaacyaha waaweyn ee cirifka kore ee taawarka ka dhacaya, isagana wuxuu u sheegayaa kaliya inay u baahan tahay geesinimo. ugu dambeyntiina waxay iska soo tuuraysaa taawarka, waana meesha kaliya u gudbinaysay duunyada caadiga ahayd. markay indhaha soo kala qaadana, Artemis waxay arkaysaa inay joogto dhulkii ay taqaanay. daal iyo dagaal kadib, Artemis waxay maqlaysaa cod diyaarad oo cirka ka soo yeeraya, balse marka hore ma arkayso sababtoo ah dhanka qoraxda ayay ku beegan tahay. markay soo istaagtana waxay arkaysaa diyaarad militari oo raadraadin ku jirta. inkastoo Artemis ay dareemaysa nafis yar, balse gudaha qalbigeeda waxay og tahay in halgankii ay kusoo mareen adduunka kale aysan weligeed iloobi doonin. ka hor intaysan bixinna waxay arkaysaa saaxiibkeedii ugaarsadaa oo isagana yimid, waxayna ku farxayaan inay ku midoobeen adduunka. halkaas ayuuna filimkeeni ku dhammaaday. daawadayga sharafta leh, haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha iloowin inaad like, share iyo subscribe ba aad si aad u hesho muuqaal kale oo xiiso leh.